kulanti wanaagsan markale kuna soo dhawaada dhalankori iyo barnaamijkeena maalada dhalanka oo toddobaadba ku dhageysataan sheeko cusub sheekada toddobaadkan aan ku hayno waxay ku saabsan tahay jiirkii fulaha ahaa waxa la yidhi bari hore ayaa waxaa jiray jiir yar oo aad iyo aad u baqan jiray wuxuu ahaa mid cabsi la nool waxaa hareerihiisa ka dhacay oo dhanna waxay ku hayeen cabsi waxaa la yidhi carruuray waqtiyada ka mida ayaa waxa jiirkan yar oo ku noolaa duurka noloshiisa oo dhan hadhaysay cabsi aan dhammaad lahayn wax kasta uu ka baqan jiray maalintii oo dhanna waxa noloshiisa ku qaadan jiray inuu is ilaaliyo oo naftiisa iska eego ilaa duqsi quraanjo wax kasta oo hareerihiisa maraya uu ka baqan jiray xataa caleemaha dhirta ka soo daata ayaa uu ka baqanayay mararka qaarna xataa isaga ayaa iska baqanayay oo lafihiisa u baqan jiray baqtida noocan ayaa xayawaan oo dhan maqleen wayna ku qosli jireen oo way soo xaraaba tagi jireen waxay arki jireen oo kuna sheekaysan jireen fulaha jiirkan fulaha way u maadaysan jireen maxaad u qoslaysaa maxaad ka baqanaysaa hadda jira maxaad aragtay tanna waxay cabsi ku beertay jiirkii maalmaha kamid ah ayuu noloshiisa go'aan ku gaaray inuu tan wax ka bedelo wuxuuna u tagay libaax waqtiga uu libaax ku soo beegmay oo ahayd hadbadh xilligaas oo barqa libaax la yiraahdo libaaxuna inta uu cunteeyay uu hadda hurdo ku jiro ayaa uu jiirkii go'aansaday inuu libaax u tago waxa uu ka koray dabada saynta libaaxa koraya oo raacay ilaa uu dhabarkiisa sare koray oo dhagaha istaagay isaga oo isdhiiri gelinaya markana go'aan ku gaaray waxay doontaba ku qaadateen mushkilada haysata uu libaax kala hadlo xayawaankii duurka ku jiro dhanna way u soo daawasho tageen iyaga oo ka argagaxsan waxa maanta dhici doona libaax ayaa toosay intuu uu gilgishay ayuu hortiisa ku soo tuuray jiir inta uu aad u eegay jiirna wada gariiray oo ruxmay oo isruxay ayaa uu yidhi isagoo qaylinaya hay cunin boqorkii duurkow waxa maanta halkan aan kugu imi ayaa uu yidhi isagoon hadalka dhammaysan ayaa xayawaan oo dhanina wada gariireen waxaa ku yidhi sheeg maxaad doonaysaa waxau yidhi waxaan ahay jiir yar oo duurkan ku nool wax kasta ayaan ka baqanaya oo hareerahayga dhacaya xataa caleenta dhirta ka soo daadata mararka qaarna aniga ayaa iska baqayo nafahayga u baqaya waxa tahay boqorkii duurkan ku nool xayawaanka inta joogo dhanna waxay xataa ka baqaan oo ay ka gariiraan markii ay codkaaga oo kaliya maqlaan waxaan doonayaa inaad iga caawiso sidaan cabsidan uga bixi lahaa libaax ayaa qoomamiyooday indhaha iskeliyey jiirkana waxa weli ku soo celinaya hay cunin hee caawi inta uu indhaha qabtay oo fikiray oo eegay ayaa aad ula yaabay hadalka ka soo baxaya afka jiirka waa fikiray markaasuu jiirkana raja yara gashay oo u dhow la cadeeyay aad ayuu u qoslay waxa uu intuu kor iyo hoos ugu degay ayuu yiri waxaad ii sheegtaa sababta hal sabab oo aan kugu caawiyo anigoo ku cuni kara maxay tahay sababta aanan ku cuni karin oo aan kugu caawin karaa waxaaga yaray inta leeg markaasuu yiri waxaan ku ballan qaadayaa inaan ku caawiyo inaan nooyo waxaad ii tirto dhawaan soo celin doonaa dad abaal ma kala waayo ballan ayaan kugu qaadayaa ee hay cunin inta weegay oo indhaha dar isku qabtay ayuu yidhi adiga abaal ii geli karaa adigoo inta leeg miyaad abaal ii geli kartaa carar oo qari muuqaalkayga tubna yaanan ku arkin oo kalduurka xayawaankii oo dhanna markay arkeen wixii ku dhacay ayay carareen maalmaha ka mid ayaa libaax duurka aaday siduu u qaraab tago meel dhexe marka uu marayo ayaa shabag nin ugaarsaday u dhigay libaax cirkaas ula booday geed ayuu ka soo lulmay waxaan uu noqday mid aan waxba hadda u tari karin awoodnimadiisii maadaama uu ahaa boqorka duurka ku nool ee xayawaanka oo dhan waxa uu ka xishooday inuu qayliyo oo ooyo sidoo kalena waxa uu isweydiiyey adiga ayaaba ah boqorkii duurka ee waa cidda ku caawin kartaa
wuxuu kaloo ogyahay haddii uu qayliyo amaba uu caruuri cabaadka sii badiyo in ugaarsadihii maqli karo xayawaankii oo dhan ayaa isugu yimi waxa ku dhacay boqorkoodina sheeda ayay ka wada arkayeen mid se keligii kuma dhiiran inay caawiso mid walina harinta inta eegta ayay bannaan ka dub isaga taagaysay waxaa soo baxay jiirkii cabsida badnaa wuxuu arkay maanta in boqor mushkilad weyn haysto wuxuuna markiiba gartay in cidda keliya caawin kartaa ay isaga tahay sidii caadada ahayd ayuu ku booday saynta dabadiisa kor ayuu u fantay wuxuuna bilaabay in xadhkaha shabaga dabinka lagu xidhay libaaxa uu googooyo midba mar ayuu ku qabtay iliga muddo dheer ayay ku qaadanaysay bakayle ayaa tartiiba ugu yimi wuxuu yidhi dhaqso waxaan maqlayaa sanqadha ugaarsadihii intaa markii uu yidhina xayawaankii oo dhani ayaa wada yaacay duurka ayay aadeen jiirna waxau sii watay isagoo dadaalaya inuu furdaamiyo libaax wuxuu ilkaha ku jarayay xadhiga adag ee shabaga ilaa markii dambe uu ka gooyey libaaxa shabagii inta uu foorarsaday ayuu yidhi soo ful dhabarkayga waa inaynu cararnaa intaan ugaarsadihayna soo gaadhine wuu la cararay markaasuu ilaa godkiisa la orday markii uu godkiisa la hor yimi ayaa inta uu foorarsaday si tartiiba uga degay uu yidhi soo deg wuxuu ku yidhi maqal saaxiibkayow maalintii dhoweyd ee aan ku lahaa aniga waxba iima tari kartid adna aad ii sheegaysay inaad mar una caawin karto runtii aad ayaan waxtarkaaga u dhayalsaday waxay tahay sababtu ma ogeyn inaad tan oo kale ii samayn karto laakiin ogow maanta waxaa tahay saaxiibkayga dhabta ah mana jirto sabab aad u baqataa waayo ma jirto cid kaa geesisan oo hadda halkan ku nool xayawaan oo dhan way yaaceen adiga ayuuha ka keliyii naftayda badbaadshay haddii anigu aan ahay boqorka duurka aadna waxaa tahay boqor ilamida maanta laga bilaabana cabsi la'aan ayaad arlada ugu noolaan kartaa aad ayay iskula qosleen jiirna aad ayuu u farxay maalintaa wixii laga bilaabana jiir waxau ahaa saaxiibka dhabta ah ee boqorka libaaxa ee duurka ku nool xayawaankii ayaa markay warkaa maqleen ku soo wada ururay dhammaantoodna sacabka ayay u wada garaaceen oo way u sacabatumeen heshiiska libaax iyo jiir dhex maray jiirkii yaraa ee baqrinta badnaana sidaas ayuu noloshiisa ku noqday kan ugu farxadda badan leh ee duurka ku nool sheekadan carruurey waxaad ka baratay in qofka yari qof weyn wax tari karo barnaamijka dhalaan koriye oo toddobaadkiiba hal mar ka dhagaysataan channelkeena dhalaan koriye ee maawilada dhalaanka toddobaadkana intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideena dambena waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo maalmuhu haydin wacnaadeen